بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 744 عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ضوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 10kii bishii saddexaad rabiicul awal sanadka 1447 islamarkaana waafaqsan 2dii bishii sagaala sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntaqabu min saxiixi sunan nabawiya wa ziyaadaatuhu qaybihiisii kala duwanaa, khaasatan qaybtii aan u magac daray alwaciidu shadiid liman akhada shay-an min alardi dulman bigayri xaqihi. waciidka adag ee ku soo arooray dhulka ninkii wax ka qaata dulmi u qaata, iyadoo shay oo dhan ay sidaa ay tahay, haddana si khaasatan dhulka ee dulmiga lagu qaato iyo gardarada iyo khuduurada ay leedahay. waxaanu soo qaadanay ilaa 5 xadiid baanu soo qaadanay. maanta aan gebagabaynaynaa xadiidkii 6aad baanu maanta ku gebagabaynaynaa. intaana gelin xadiidka, waxaan ka raaligelinhayaa bulshaweynta soomaalida duniyada dacaleeda xadiidku gaarhayay 2 maalmood, axad iyo ithniin, labada mayna qaadanin xadiidka mashquul darteed. axaddii oon safar ahaa iyo ithniintii oon daalanaa iyo mashquul kale ay qabsaday. 2 maalmoodba maana akhriyin xadiidka. aad iyo aad ba u raalli ahaanaysaan. dad badan baa cod iyo qoraalba isoo dhigay inaan xanuunsanahay, see waxa yahay, wax badan igu soo celceliyeen. marka horta aad iyo aad baad mahadsantihiin ihtimaamkaad siinaysaan xadiidka. anigana dhiirigelis bay idiin tahay iyo ii tahay. allah idin barakeeyo. waanu dadaali inta tabartay, laakiin insaan baan ahay oo duruufo iyo wax kasta igu qumi. marka kolba wixuun duruufta say tahay maan oola tacaalayna. xadiidkeenan waa xadiidkii u dambeeyey ku saabsanaa alwaciidu shadiidu liman akhada shay-an min alardi bigayri xaqihi. dhulka ninkii si xaq daraa ku qaata, waciidka iyo goodiga adag ee ku soo arooray. xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray. xadiidkan macno ziyaado u wata male, kuwii horunbuu la macno yahay, laakiin hal arrin baan xadiidkan u keenay. xadiidkan saciid binu zayd radia allahu tacaala canhu wa ardaah, qiso asaga iyo gabadh reer madiinaha kala qabsatay buu xadiidka xumbaarsan yahay. saciid binu zayd waa nin saxaabi ah oo min almuhaajiriina ka mida, oo reer bani maartay cadawi ah. cumar binu khadaab bay ilmadeer yihiin. walaashiina wuu qabay, faatima binti khadaab. cumar binu khadaabna sabab buu ahaa islaamnimadkiisa, asagaa soo islaamiyey. 10 lmubasharuuna biljanna ayuu ku jiray, 10ka jannada lagu bishaareeyey. saciid binu zayd wuxuu leeyahay marka, ina rasuulalahi sala allahu calayh wasalam qaala, nabigu wuxuu yihi, man iqtadaca ninkii goosta shibran taako min alardi dhul xaggii dulmi ku goosta, dawaqahu llaahu ilaahay ba u luqun gelinayay bihi asaga yowma alqiyaamati min 7 aradiina, 7 arda ilaahay luqunta u gelinaya. waan soo maray xadiidkan kuu lamidaanu soo maray, inuu ilaahay subxaanahu watacaala qofka dhulka shibran taakaa la yidhi, bimacnaa wax yar, hadduu doonaa kasii yaraado, taaka iyo wax ka yar iyo wax ka badan, qidca ardaa dulmi ninkii ku qaata, ilaahay luquntuu 7 arda qiyaamada u gelinaya. waxaa kaloon soo maray khusifa bihi yowma alqiyaama, yani waxaa lala goynaya 7 ardin, 7 ardaa lala goynaya qiyaamada. idan tadwiiq luqunta loo gelin isagoo 7 ardo luqunta ku wata. waa arrin khatara wey, mandar aad iyo aad u foolxun wey, muuqaal foolxun. xadiidkan saciid binu zayd radi allahu canhu qisa ayaa qabsatay, asaga iyo gabadh arwa bintu aws la yihahdo, ama arwa bintu uways, labaduba waa la wariyaa inay uways ay tahay iyo inay aws tahay. labadan maartay, labada riwaayadood way soo aroortay. gabadh taabiciyada ay ahayd arwa bintu aws ama arwa bintu uways, midkaa tiraahdiba. dhul bay dhul bay jiiraan ku ahaayeen. sohdin baa u dhexaysay saciid binu zayd iyo gabadha arwa la yihahdo. dhul bay isla lahaayeen. dhulka xaggaa iyo baqi cagaheeda ku yaala magaalada madiina.
marka ma caqiiq xag waadiga caqiiqi xagiisa dhulkii gabadhii marka waxay tiri saciid baa dhulkayga qayb goostay bay tiri calaamad iyo soodin buuna dhulku lahaa marwaan ibnu xakam al-umawi oo wakiil ka ah magaalada madiina wakiil ah cuthmaan bin cafaan wakiil u ah oo halkaa jooga ayaa waxaa dhacday ama mucaawiyaba u ahaaba ayay ku dacweysay oy tiri marwaanow ninkan saciid binu zayda dhulkayga buu iga riixday oo soodintii buu khalday oo qayb buu iga goostay marwaan binu xakam saciid buu u yeedhay saciid binu zayd buu u yeedhay saciid binu zayd markuu u yeedhay wuxuu ku yidhi saasaa lagugu soo dacweeyey saciid binu zayd wuu qaraacmay wuxuu yidhi marwaanow ma anoo nabiga ka maqlay xadiidkaas man iqtadaca shibran min alardi dulman dawaqahu allaahu bihi yowma alqiyaamati min 7 aradiina anoo xadiidka nebi maxamed ay dhegahayga ka maqleen miyaan dhul qaadan buu yidhi marwaan arrintii wuxuu yidhi raalli ahow wax damba ku weydiin mahayu yidhi saciid waa iska soo tegey weliba intuusa soo tegin buu halkii wuxuu yidhi ilaahayow waan habaartami buu yidhi maxalu shaahidkan u jeedaa waxay tahay qofka madluumka ilaahay hadduu baryo ilaahay wuu ka aqbali walow kaana kaafiran dhaalimka waxaa weeyaan ha iska ilaaliya ducaa lmadluum saciid binu zayd meeshii buu ku yidhi ma anigoo nebi maxamed xadiidkaa ka maqlay bay gabadha maanta igu soo dacweysay dhul ducadan buu marka ku habaaray allaahuma in kaanat kaadibatan fa acmi basaraha waqtulhaa fii ardiha buu yidhi ilaahayow hadday beeneley ay tahay igu masabidanayso oo xaq aan jirin igu sheeganayso ilaahu indhaha tir buu yidhi ilaahu dhulkan ay sheeganaysana ku dhex dil buu yidhi goof iyo god ku dhex rid buu dhulka dhexdiisa oo meesha ay joogtaa riwaayadaha qaarkood waxay sheegayaan wuxuu yidhi ilaahu ka daahiri calaamad inaan beri ka ahay oona dhulkeeda aanan dulmiyin calaamad i beri yeelaysana allow muuji buu ku yidhi ducadaas habaarka uu ku habaaray allahuma in kaanat kaadibatan fa acmi basaraha waqtulhaa fii ardiha raawigu wuxuu leeyahay curbat bnu zayd oo warinaya wuxuu leeyahay waxaan arkay ayadoo derbiga qaqabsanaysa oo indho beeshay oo beerteedii dhexdiisii derbiga qaqabsan oo ku haysa waxaa igu dhacday habaarkii ducaawi saciid binu zayd baa igu dhacday leh oo habagsanaysa indhuhu dam yihiin oo derbiga saa u qaqabsanaysa beerteeda dhexdiisa waxaa kaloo riwaayaadka qaarkood sheegayaan ilaahu calaamad beri yeelaysana ka muuji uu yidhi waadiga togii la dhihi jiray caqiiq ayaa intuu soo rogay daad uusan weligii keenin intuu keenay buu beerihii wixii oo dhan ku dhuftay saciid binu zayd beyrtiisii iyo arwo beerteed intuu ku dhuftay iyo wixii oo dhan intuu ka xaaqay buu calaamadihii iyo sohdimihii oo dhan buu bannaanka keenay saa waxaa la arkayba sohdintiisii arwo sohdinteedii oo saciid binu zayd dhulkiisa dhexdeeda ay marsan tahay halkaasi ayadaaba la aaday ayadaaba dhulkii qayb ka qaadata sohdinteedii oo dhulkii saciid binu zayd dhexdiisa ku taallaa la arkay xaggay u riixdayba isagaaba dhacan oo beertiisa dhexdeeda iyo calaamadeeda marsatayba sohdintiisii oo waxaa la arkay ay qayb dhan ay qaadatayba oo xagga dhulkeedii la galay kadibna waxaa dhacday buu raawigu yidhi ayadoo habagsanaysa oo indhala oo dhulkeedii dhexdiisii derbi qaqabsanaysa yay goof weyn oo god ku dhex yaalla beertii ku dhex dhacday halkaasaa lagu xabaalay godkii lagama soo saarinba qabri baa looga dhigay habaarkiisii baa ku dhacday uu yidhi allahuma in kaanat kaadibatan fa acmi basaraha waqtulhaa fii ardiha buuri ilaa hadday been sheegayso oo igu masabidanayso allow indhaha tir kuna dil dhulka ay dhulkeeda ku dhex dil sidii baana noqotay oo indhihiina waa la tiray goof iyo ceel dhulkeeda ku dhex yaallana ku dhex dhacday wayna ku dhimatay ilaahayna subxaana wa tacaala wuu beri yeelay saciid binu zaydo daadadkaasa intay ku dhufteen baa sohdintii iyo wixii oo dhanba oo cad ina ayada dhulkii qayb goosatayba tusinaysa ikhwat alislaam waliimaan qisadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa awalan salafkeenni siay oga digtoonaan jireen dulmiga oo iskaga ilaalin jireen khaasatan dhul wax ku saabsan siay iskaga ilaalin jireen saciid binu zayd uu marka habaaritamay oo yidhi ma anuu nebi maxamed ka maqlay xadiidkaasaan dad dhul ka qaadan
waxaa kaloon ka faa'iidaysanayna xadiidkan madluumka ducadiisa inuu ilaahay aqbalahay oo daalimku markaaba ilaahay u soo dedejinaya cuquubadii iyo dhibaatada uu galay. gabadhaas saxaabiga ku been abuuratay intii uu ku habaaray way ku dhacday. ilaahu indhaha tir buu indhihii baa la tiray, ilaahu dhulkeeda ku dilba ayuu yidhiyo goof baa ilaahay subxaana watacaala ku dhex riday iyo god dhulkeeda ku dhex yaalay. idan ikhwati filaahi, dulmigu waa khatar weyn. marka laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran fadulmu cuqbaahu min alwakhimi weeyaan. yani haddaad awood leedahay dulmi ha samayn. awood baan leeyahay darteed dulmi ha u samaynin. shaacirku wuxuu sii waday, wuxuu ahaa ninka maaragtay madluumka ilaahay wuu baryhayaayo indhihiisu ma seexanhayaan, amaa daalimku wuu iska iloobahayaa. daalimku wuu iska iloobi. idan ikhwatii filaahi, ilaahay subxaana watacaala hana badbaadiyo. waa arrin khatara, arrintaas ha laiska ilaaliyo. waxaan ku gebagabaynhayaa, waxaa jirta soomaalidu meel kasta oy joogaan isticmaalaan dhul cidla'a ayay calaamadaysanhayaan oo dhagaxyay ku wareejinayaan ama ood iyo geeday ku wareejinayaan ama astaan kale u yeelanhayaan. sharci uma haystaan, waxba uma haystaan, dhulka anaa iskale u horreeyey bay dhahayaan. arrintaas sharcigu muxuu ka qabaa? waxaa jirta waxa la yidhaahdo sharcigeenu iyo fiqigu baabaysanaya ixyaaulmawaad. dhul dhintay qofka nooleeya asagaa iskale ama cidda u horeysa asagaa iskale, laakiin shuruud baa loo xidhaa. waa inuu dhulka uu qofku asagu u hormaray, waa inuu qaabka uu rabo inuu dhulka u samaysto, waa inuu castaanteeda u sameeyaa. hadduu rabo dhul beereed inuu ka dhigto, waa inuu derbi ku wareejiya oo beerihii iyo wixii o dhan muddo degdega uu beer ahaan ooga dhigtaa. hadduu rabo degan inuu ka dhigtana waa inuu guri degan qaabkii u sameeyaa. laakiin dhul dhanu intaadun astaan iyo calaamad saa u samaysay inaad iska tiraahdo anaale oo sanado dhan ay saas iska ahaadaan, sharcigu ma ogolo. sharcigu ma ogolo. dhulka noocaasana fiqigu kitaabka minhaajka matniga wuxuu ku leeyahay ma iibsan karo qofkaas. astaanta dhulkaad u yeeshay oo wax calaamadoo kalood u samaysta, dhisaynkiisa aada bedelin. beer ahaan haddaad ka rabtay beer aad u qaabaynin, guri degan haddaad ka rabtay guri degan aad u qaabaynin, ma iibsan karti. xoogaa dadka waad ka yar xigtaa mooyaane oo waad calaamaad u yar yeelata mooyaane kuma tasarufi karti. bimacnaa ma iibsan karti. iib qof kale iibkaa ma ansaxay, maxaa yeele milkiyadaadu taam mayo. qofka intuu iska soo kaco ku habsada oo dhistana loo qabsan maayo. waxaan la dhihi niyo waad yar gardaraysatay oo ninkii baad maada xaq dhowrin, waad gacan dhaaftay, raalli ahow dhahan baa la dhihi qofkaas. kii kale eed ka qaadatay raalli ahow dhahan baa la dhihi. u dandhow la dhihi maayo, maxaa yeele ninka milkiyadiisa taamba ma ahaynba. idan waa arrin khatara weeyaan, ha laiska ilaaliyo. dhulalkan laiska oodanhayo oo waxa qaabayn iyo dhismo iyo midna aan jirin, arrintaas sax maa. dowladduna xaq waxay u leedahay muddo yaroo kooban qofka in la siiyo. 3 bilood baa lagu siin, 4 bilood, 5 bilood, haddii la doono 6 bilood ha looga dhigo. intaasaa dhulkaada lagaa sugahayaa. beer haddaad ka rabtay beertii ku samayso. dhisme haddaad ka rabtay dhiso. ma aha miya muddada 6 bilood ama 3 bilood kadib dowladdu xaq bay u leedahay inay ka wareejiso, ka leexa in la yidhaahdo. lama ogolo arrimaha noocaas. marka waa xaqdarro iyo dulmi weeyaan weyn oo aad iyo aad khatar u ah. kitaabka minhaajkay ku qoran tahay. fiqi shaaficina waan sheeganaa. cid baraarujinaysana waa laga yaabaa inay iska yar tahayba, oo qofku meel intuu iska ooto asal uu geedo mariyo ama geedo saa u qoqotamaya ama dhagaxyo saa u dhaho yuu dhihi dhulkaana iskale. muddo dheer bay saa iska ahaanaysaa. wax u soo dhowaan karan male. markii dambana inuu iska gadgataaba laga yaabaaba. sharci uma hayo, design male, waxba male. marka maba iibsan karo dhulkaas. milkiyadiisi taamu maaho, maba iibsan karo. waana maarta arrin aan banaanayn wey. ilaahay subxaana watacaala hana xifdiyo oo arrimahaas oo dhan la iska ilaaliyo. hal mar baan xadiidka baabkeennan halkaas ayaa baabkii aanu idhi alwaciidu shadiidu liman akhada shay-an min alardi bigayri xaqihi. waciidka adag ee ku soo aroray dhul dulmi lagu qaatay wixii ku saabsan, halkaasaan maanta ku gabagabaynayna. waa xadiidkii 6 weeyaan. insha allahu tacaala mawduuca kalen u gudbi doono ayaan ka fikiri doona hadduu ilahay idinku hadday ila wadaagtaanna aad ba u ficnaan lahayd oo tirahdaan mawduuca iyo mawduucaasaa loo baahan yahay. hal mar baa xadiidka ku celinaya lafdigiisa. alxadiidu 744 can saciid bni zaydin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man iqtadaca shibran min alardi dulman dawaqahu allahu bihi yowma alqiyaamati min 7 aradina. muttafaqu calayhi. hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.